anigoo ah afayeenka dowladda hoose ee degmada Garowe Cabdirashiid Ciise Wooyaale waxaan bulshada u sheegayaa in dowladda hoose waxay ka codsanaysaa oo ay u sheegaysaa bulshada Garowe inaan la jajabin hantida ummadda aynu wada leenahay oo lagu dhisay lacagihii layni ka qaaday oo cashuurtaha waa qodobka labaad dadka caadaystay inay wax burburiyaan oo aan u jeedin inay wax la saxo iyagana waan ognahay oo ay ka mid yihiin idaacadaha caadaystay inay dadka hagaan ay ka mid yihiin idaacado badan oo iyagana aan ognahay oo iyagana tilaaba laga qaaday waxaan kaloo idin sheegayaa idaacadaha social media way waa qaar ka mid ah way maaha warbaahinta social media waxaan idin sheegayaa oo kale hawshii awal la hore aan uga shirnay haddana lagu jiro maaha in laga hordhaco way waxaan rabnaa lacagtaan la diiday hawsheedu waa lagu jiraa dadka yagu hawsheedu waa lagu jiraa go'aan baana ka soo bixi doona maaha marka in sawirada dawladda iyo sawirada shakhsiyaadka iyo sawirada kale in la jajabiyo maaha laamiga in la gubo maaha buundadii dhammayd oo isku xidhaysay Garowe oo dhan haddaynu maanta ay dhacdo yaa inoo samaynaya waa inaynu haddana dib u ururinaa lacag oo aynu iska ururinaa hawsha waa lagu jiraa waxaan codsanaynaa tii maanta dhacday inayan dib dambe u dhicin waxaan codsanaynaa adduunku waa jiraa banaanbaxu waa jiraa sharci buu leeyahay nidaam buu leeyahay borar baa la soo qaataa qofku wuxuu ka cabanayo buu ka hadlaa hadduu ka cabanayo sicir barar baa laga hadlaa hadduu ka cabanayo dhibaato loo geystay dhibaatadu ka hadlaa shakhsiyad baa wax ka hadli kadha oo qofku uu dareenkiisu muujin karaa laakiin shacabka Garowe tii maanta dhacday oo aan ognahay inay hawli ku jirto markaad burburinaysaan buundada iyo laamiyada maxaa yaal meesha insha Allah kulli iyadoo dhammaanteed waxaan marka idin sheegayaa oo idin kala hadlaynaa haddaanu nahay dowladda hoose hawshii waa lagu jiraa go'aan baana ka soo baxaya dowladdu waxa ka hakramayso annaguna waxa hakramayno siyaasadna wayna ku jirtaa dadka siyaasadda ku jirana waxaan ka codsanaynaa inay faraha kala baxaan hawsha dadweynaha dhexdooda waxay rabaan dadka qaarkii waxay rabaan in sicir bararka iyo lacagta la diiday la hirgeliyay rabaan dadna waxay rabaan in Garowe la burburiyay rabaan kuwa raba inay laamiga burburiyaanna waa ogna oo social media qaar ka mid ay ka mid yihiin waxaan marka idin sheegayaa waxaan codsanaynaa in arrinta dib dambe u dhicin na sugtaan waa wada hadlaynaa run baa la isu sheegayaa been waa dhammaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa hadalka aan leenahay inaad qaadataan oo hantidiina aad leedihiin aydu burburin hantida idinkaa bixiyey lacagta idinkaa bixiyey hadda laamiga cusbaa oo maalinta dhood la dhisay halkii dollar oo layni ka qaaday baa lagu dhisay oo gurigiina aad ka bixiseen ma garateen oo layni ka jar idinka haddaa maanta burburisaan soo khasaaro maaha awal ajar baa geysateen laakiin hadda ajarkii waxaa laga baqaa in layni ka qaado sababtay tahay yaa dhisaya ma dowladda hoose awood u leh inay dhiso waxaan codsanaynaa hantidiinna ha isku burburinina magaciinna ha ku cayaarinina ummadda Garowena waxay ahayd ummadda nabad jecel waa magaalo madaxdii oo sharaf leh kuwa ku adeeganaya oo siyaasadda ku dhex jiraana ka dhaxbaxa dadka in leenahay haddaydi ka dhibxina tilaaba in magacay waa maxamed cali maxamed gudoomiye ku-xigeenka degmada Garowe runtii maanta Garowe waxa ka dhacay waxaan la filayn oo ah mudaharaadkaasoo saddex qaybood ahaa qayb dad ka cabanaya shilin Soomaaliga oo ay baahi iyo dhibaato ay qabaan ay u mudaharaadayeen qayb siyaasad ku soo gashay iyo qaybo kale oo gadaal ka riixayay intaasba dawladdu way la socotaa dadka waxa leenahay horta hantideena iyo laamiyada buundada laamiga weyn iyo meelaha kale inaan dhibaato loo geysan dalka inaga iska leh inagu ina anfacaya inaga waxtarkeeni iyo hantideeni iyo dhaqaalaheeni intuba galeen dadka waxaan leenahay walaalayaalow dhulkeena haynaga burburinina laamiyada haynaga burburina goobaha la isugu yimaado oo xafladaha lagu sameeyo haynaga burburina intaas waa tala guud tan shilin Soomaaliga insha Allah waa la xalinayaa dawladdu waa u fadhidaa xal baa loo helayaa waara lacagta aynu leenahay waa shilinkaas kunkaas shilinna waxa iska leh Soomaali baynu nahay lacagteena inaad diidna ma qof kasta oo Soomaali xaq wuxuu leeyahay inuu lacagtaas socodsiiyo
hadduu yahay hooyada suuqa fadhida kan bangiga fadhiya kan fadhiyo ma garanaysaa shirkadaha waaweyn kulli in lacagta Soomaaliga la socodsiiyo lacagta inaga iska leh ma laha shakhsiyaad kale magaceena ku qoran shilin Soomaali baa ku qoran in la qaato ayaa la rabaa waxa kale oo jira social media qaybo badan baa maanta dadka horboodayay oo la arkayay iyagoo dadka kicinaya dadka gacan ku siinaya inay gubaan wadooyinka waxaasoo dhan dawladdu waa la socotaa il dheeriye ku haysaa waxaan leenahay dadkeena iyo dadweynaha ku nool caasimadda Garowe walaalayaal xaaladda dejiya inagoo ilaashanayna nabadgelyadeena inagoo ilaashanayna quruxda iyo bilicda magaaladeena inagoo ilaashanayna oo tixgelinayna amnigeena mid kalena waxa la rabaa sawirada guud ee madaxweynaha dawladda Puntland in maanta waxa lagu sameeyay in la fujiyay taasoo inagu ceeb iyo sharaf ka dhac aysan dhici doonin mar dambe hadii Ilaahay idmo haddana aan rakibi doono oo meelii laga fujiyo dhan aan ku dhajinayna hadii Ilaahay idmo qashinkii la gooyna dawladda hoose ay ururinayso inta waa balan qaadayna dadka nabadgelyadoodana waa la socdaa waana la qabanaya waana la xiraya hadii Ilaahay idmo laga gaban mayo inshallah gudoomiye inta ka bixin waxa sheegtay in lacagta shilin Soomaaliga arinteeda dawladda ka howlan tahay balse dadka cabanaya oo si caadiga u barabaxay qaybtooda sicir bararka cabanaya waxay leeyihiin canshuurtii dawladda soo gudiday lacagta shilinka Soomaaliga annagu dawladda hoose canshuur aan ku diidna shilin Soomaali cid cadeyn ka dhaama jirto hadeerna dadka waxaan u cadeynaynaa in ogolna lacagta waana lacagtayda waana qaadayna midda kale dadku waxay dhan dawladda hoose diiday qof aanu ka diidnay hadii la soo helo waa la arkaya laakiin ma jiro arintaas shilin Soomaaliga dawladda hoose amar madaxweyne weeye qaataalay waa la qaataa dadweynuhu waxay leeyihiin markii ku diidan dawladda hoose diiday aniga aan cabshiid oo inila hadlaya gabar baa igu tiri waa soo afjaray waa been bay noqotay waxaan tagay dawladda hoose guri baan lahaa soo qaad baan lacagta Soomaaliga waa geeyay waa laga qaaday gabar aan ehelnahay oo guri lahayd meeshaan geeyay lacagtii waxa la yimid Soomaali baa wadata mise dollar Soomaali baa wata keen isruudku marayay baa loogu dhuftay 35 baa loogu dhuftay kowde annaga marka lacag ma aan diidin yaan ceeb la isceebayn dawladda hoose haday lacag Soomaali diido oo ay cadaato idii marka diiday baa tilaabo laga qaaday anna wax dakhli baan leenahay cashuuraha iyo waxda dhulka oo lacag qaada labadaba waa laga qaadaa yaan marka dadweynaha been loo sheegay yaan nin siyaasiya ama nin raba ama suxufi qaarkood oo raba inay dadka kiciyaan yaan been la isu sheegin insha Allah hadii la idmo lacagta waa qaadanaynaa xilli walba waa qaadanaynaa awalna waa qaadan jir haddana waa xoojinaynaa in la qaato